diri karaa oo sideen u dirsan karaa garaac 133 kadibna raaci nambarka aad u direysay fariinta codka ah adigoo ku bilaabaya 6 hal hadii aad dhageysanaysana garaac 134 dhambaal waa fududeeyaha fariin codeedka Radio Simba si dhagahaaga ha ku siiso wararka sugan Radio Simba markaan daarnaba dig ma soo yire madax gacmeedku dacal kaga yaal Radio Simba dhacdo kasta sheeka ka dambaysa sheeka kastana dhacda ka dambaysa Radio Simba xarunta wararka sugan sifeeyaha xaqiiqda subax wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada qodobada ugu doorka roon warka subaxnimo ee raadiyaha Simba ciidanka booliiska Soomaaliya ayaa kordhiyay howlgallada ay ka sameynayaan xaafadaha qaar ee Muqdisho iyo howlgal qorsheysan oo xalay ka dhacay degmada Boondheere xildhibaanada cusub ee baarlamaanka Galmudug ayaa xalay dhuusamareeb waxay ku yeesheen kulankoodii ugu horeeyay maxkamadda sare ee Puntland ayaa beenisay in madaxweynaha Puntland uu diidan yahay in xukun dil ah lagu rido raggii dilay isla markaana faraxumeeyay Caaisha Ilyas beesha caalamka ayaa cadaadis xoogan saaraysa dawladda dhexe si ay wada hadal ula furto maamul goboleedyada Jubbaland iyo Puntland ciidanka milatariga Soomaaliya ayaa saaka dhaqdhaqaaq ciidan ka wada deegaano hoos yimaada degmada Boondheere ee gobolka Gado ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre ayaa kulan la qaatay wakiilka gaarka ah ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya akhbaraadka dibadda warbaahinta Simba subaxnimadkan idiin haysana waxaa ka mid ah dawladda Jarmalka oo martigelinaysa shir looga hadlayo xaaladda Liibiya iyo weerar ay dad ku dhinteen oo ka dhacay bariga dalka Afghanistan subax wanaagsan akhyaaray waa subaxnimo axada tirsiga taariikhduna ay tilmaamayso 12ka bisha koowaad sanada 2020 intii aad maqasheenna waxay ahaayeen qodobada ugu doorka roon warka subaxnimo ee raadiyaha Simba iminkana ku soo dhawaada warkii oo dhameystiran aan ku bilaabay magaalada Dhuusamareeb ee xarunta maamulka Galmudug waxaa xalay kulan ku yeeshay xildhibaanada cusub ee baarlamaanka maamulka Galmudug Awul Ciise ayaa warkan faahfaahinaya kulankan oo ahaa kii ugu horeeyay ayaa waxaa iskugu yimid xildhibaanada la dhaariyay ee baarlamaanka dawlad goboleedka Galmudug ee ay soo dhistay dawladda federaalka Soomaaliya oo kaashanaysa oday dhaqameedka deegaanada maamulka Galmudug kulankani waxa uu ahaa mid inta badan diiradda lagu saarayay isbarashada iyo sidoo kale hogaaminta baarlamaanka howlaha u yaala sidii ay u ambaqaadi lahaayeen iyadoo ugu horeyn xildhibaanada la isbarayo waxaana goobjoog ahaa wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta xildhibaano ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya iyo mas'uuliyiin kale waxay wararku tilmaamayaan in kulankani la isku weydaarsaday talooyin la xiriira sidii loo ambaqaadi lahaa howlaha baarlamaanka iyadoo xildhibaanada cusub ay mas'uuliyiinta dawladda federaalka u soo jeediyeen qorshaha la doonayo in ay dhaqaajiyaan ee ah sidii doorasho ay kaga dhici lahayd deegaanada maamulka Galmudug waxay sidoo kale xildhibaanadu ay isweydaarsadeen talooyinka la xiriira sidii loo dooran lahaa gudoomiye ku meel gaar ah kaas oo hogaamiya arrimaha doorashooyinka ee xagga gudoonka baarlamaanka maamulka Galmudug xildhibaanada ayaa waxa ay isku raaceen in la soo doorto shakhsiga ugu da'da weyn kaas oo noqonaya gudoomiyaha ku meel gaarka ah ee baarlamaanka Galmudug isla markaana soo dhisi doona guddiga doorashooyinka ee gudoonka baarlamaanka maamulkaasi
xog aanu helayna waxa ay tilmaamaysaa in dowladda federaalk soomaaliya ay cadaadis saarayso xildhibaanadan oo markii horeba ay lug weyn ku lahayd qaabkii loo soo xulay iyo sidoo kale sida oday dhaqameedku ay beelaha kaga soo dhex saareen. xogtu waxa ay tilmaamaysaa in dowladda federaalku ay wadato shakhsiyaad noqonaya guddoonka baarlamanka maamulka galmudug kuwaas oo iskugu jira guddoomiyaha iyo labadiisa ku-xigeen. arrintaas oo ilaah u dhown daleelo ay simbow sheegeen in looga gol leeyahay sidii dowladdu ay u heli lahayd hogaamiyo daacad u ah islamarkaana noqda madaxweynaha galmudug oo guddoonkaas xilligan la wato uu horseeda doorashadiisa. xildhibaanada qaar ayaa inoo sheegay inaynan ku qanacsanayn dhaqdhaqaaqyada soconaya iyo sida dowladda federaalku weli faragelin ay ugu hayso golaha wakiilada ee maamul goboleedka galmudug ayaga oo sheegay in ay dareensan yihiin dhaqdhaqaaqyo iyo sidoo kale arrimo la xiriira galaangal siyaasadeed oo mas-uuliyiin dowladda dhexe ka tirsan ay ku wadaan. waxaa sidoo kale horay arrintaani u dhaliilay odayaasha dhaqanka beelaha 11 ah ee maamulka galmudug deegaanadiisa dega kuwaas oo qaarkood ay tilmaameen in ay bari ka yihiin doorashooyinkii iyo sidoo kale soo xulidii xildhibaanada cusub ee galmudug oo ay ku tilmaameen in la majar habaabiyey kadib markii dowladda federaalka oo ka dulbooday dastuurka iyo shuruucda galmudug ay ku tillaabsatay sidii loo soo xuli lahaa xildhibaanadaas oo liiskooda oday dhaqameedka loo dhiibay kolkii xero lagu xareeyay. sidoo kale waxaa soconaya dhaqdhaqaaqyo arrintaasi looga soo horjeedo oo madaxweyne axmed ducaale geele xaaf uu weli gacanta ku hayo islamarkaana uu doonayo inuu ku dhawaaqo baarlamaan cusub sida ay noo xaqiijiyeen xubno ka tirsan guddiga doorashooyinka ee dhowaan uu soo magacaabay madaxweyne xaaf. guddigu waxa ay sheegeen inaynan marna ka laaban doonin awood dastuuri ah oo madaxweynuhu uu siiyey islamarkaana ay soo dhisi doonaan baarlamaanka cusub. si walbaba ha ahaatee dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa waxa ay gacanta ku haysaa arrimaha doorashooyinka iyo geedi socodka lagu helayo hoggaan cusub waxaana la filayaa in maanta wixii ka dambeeya baarlamanku ay yeeshaan guddoon ku-meel gaar ah islamarkaana ay soo doortaan guddiga doorashooyinka ee horseedaya doorashada guddoomiyaha iyo ku-xigeenadiisa taas oo sii horseedi doonta in la helo guddiga doorashooyinka ee madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo sidoo kale golaha xukuumadda shaqsiga hogaaminaya doorashadiisa intaba. ciidanka booliiska soomaaliya ayaa waxay kordhiyeen howlgallada ay ka sameynayaan qaar ka mid ah degmooyinka gobolka banaadir. booliiska sida gaarka u tababaran ee dowladda soomaaliya ayaa maalmahan waxay joogteeyeen howlgallada ay ku bartilmaameysanayaan meelaha looga cabsi qabo in al-shabaab ay weerar ka fulin karaan. degmooyinka xamar jajab waa beri iyo sidoo kale degmada boondheere iyo weliba warta nabadda ayay howlgallo ka sameeyeen ciidamada booliiska soomaaliya iyagoo ka fiijigan weerar ka yimaada dhinaca xarakada al-shabaab sida ay sheegayaan khuburada u dhuunduleesha arrimaha amniga iyo sidoo kale ciidamada waxaa jirta feejignaan dheeraad ah iyo sidoo kale xog qarsoon oo la siiyey booliiska kuwaasoo ku aadan in al-shabaab laga yaabo inay qaraxyo ka fuliyaan meelaha muhiim ah oo weliba meelaha ay shacabku iskugu yimaadaan iyo weliba jogboontiyada ciidamada dowladda. degmada boondheere ayaa xalay waxaa ka dhacay howlgal ay sameeyeen ciidamada booliiska dowladda federaalk ah ee soomaaliya waxaana ay guri u galeen xaafadaha qaar ee degmada boondheere. daljirka daahsoon ilaa 4 jardiin ayaa xalay howlgalka ugu badan waxa uu ka dhacay waxaana meel la iskugu geeyey tiro dhalinyaro ah kuwaas oo booliisku ay sheegeen in ay uga cabsi qabaan in ay ka dambeeyaan waxyaabaha lidiga ku ah amniga magaalada muqdisho ee mararka qaar dhaca. howlgalkan xalay dhacay waxaa ku soo aadayaa iyada oo shalay kooxo baastolada ku hubeysan nawaaxiga isgoyska taleex ay ku dileen taliyihii nabadsigidda degmada qoryoole ee gobolka shabeellada hoose waxaana dilalka marka laga yimaada jira qaraxyo ay fuliyaan xarakada al-shabaab kuwaasoo dhiig badan uu ku daato. ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya xasan cali khayre ayaa wakiilka gaarka ah ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha soomaaliya ayaa xalay muqdisho kulan ku yeeshay. cabdiraxmaan koronto ayaa warkan faahfaahinaya. ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xasan cali khayre ayaa xafiiskiisa kulan kula qaatay xalay wakiilka qaramada midoobe u qaabilsan arrimaha soomaaliya ambasador james swan. kulanka labada dhinac ayaa loogu hadlay doorashooyinka qaranka ee lagu wada inay dalka ay ka dhacaan marka la gaaro 2020 iyo 2021 iyo sidii beesha caalamka ay kaalin ugu qaadan lahayd fududeynta qabsoomida doorashooyinkaasi.
inkastoo xafiiska ra-iisul wasaare xasan cali kheyre uusan wax rasmi ah oo war ah uusan kasoo saarin kulanka labada dhinac, haddana warar soo baxaya ayaa sheegayay in James Swan, wakiilka qaramada midoobe u qaabilsan arrimaha Soomaaliya, uu ra-iisul wasaare xasan cali kheyre kala hadlay inay doorashooyinka ka dibdhicin waqtigooda isla markaana ay ku qabsoomaan waqtigii loo jaangooyay. sidoo kale ra-iisul wasaare xasan cali kheyre ayaa James Swan u cadeeyay in xukuumaddiisa ay diyaar u tahay in doorashooyinka ku dhacaan waqtigooda. wararka ayaa intaa ku darayay in ra-iisul wasaare xasan cali kheyre uu sidoo kale James Swan u cadeeyay in xukuumaddiisa ay mar walba ay diyaar u tahay qabsoomida doorashooyinkaas isla markaana ay diyaarisay qaabkii loo wajihi lahaa. wakiilka qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya James Swan oo bedelay Nicholas Haysom oo January 2019 dalka laga ceeriyay ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay ku dhex milmay arrimaha siyaasadda Soomaaliya, wuxuuna safar shaqo ku tagay maalmihii dambe maamulada Puntland iyo Jubbaland oo dowladda dhexe ee Soomaaliya wax heshiis aan kala dhaxeynin. siyaasiyiinta Soomaalida ayaa xukuumadda uu hogaamiyay ra-iisul wasaare xasan cali kheyre ku eedeynaya inaysan diyaarin qorshihii loogu diyaar garoobi lahaa doorashada 2020-2021, taa beddelkeeda inay ku mashquulsan tahay burburinta maamulada dalka, sidoo kalena waqti ay ku luminayso dhismaha maamulka Galmudug oo dhowr isku day oo xukuumadda Soomaaliya ay sameysay fashilmay, inkastoo haatan uu gabagabo ku leeyahay dhismaha dowlad goboleedka Galmudug. maxkamadda sare ee maamulka Puntland ayaa beenisay in madaxweynaha Puntland uu diidan yahay in xukun dil ah lagu rido raggii ka dambeeyay falkii lagu dilay laguna faraxumeeyay marxuumad Caaisha Ilyas. falkan oo ka dhacay magaalada Gaalkacyo siiba waqooyiga magaaladaasi ayaa waxa uu noqday mid qalqal ka dhex abuuray madaxda ugu sareysa Puntland, maadaama dhowr jeer oo hore raggan la soo taagay maxkamad. raggan ayaa waxa ay ka kooban yihiin 4 nin, waxaana lagu eedeynayaa in ay ka dambeeyeen qaarkoodna ay ku lug lahaayeen falkii lagu dilay laguna farxumeeyay gabar 9 sano jir ahayd oo lagu magacaabi jiray marxuumad Caaisha Ilyas. madaxweynaha Puntland ayaa la sheegay in uu mar amar ku bixiyay in raggan cadaaladda la horkeeno xukunka ku dhacana lagu fuliyo, balse warar ay heshay idaacadda Simba ayaa waxa ay sheegayaan in ay jiraan qabaa'ilada qaar oo ay dhalinyaradan ka soo jeedaan kuwaas oo galaangal xoogan ku leh Puntland isla markaana diidan in maxkamaddu xukunka ay fuliso. 3 jeer ayay raggan ka soo hormuuqdeen maxkamadaha ugu sarreeya Puntland. maxkamadda gobolka Nugaal ayay mar ka soo hormuuqdeen, marna xeer ilaalinta ayaa maxkamadda codsatay in la horgeeyo. markii ugu dambeysayna maxkamadda sare ee Puntland ayaa go'aan kama dambaysa ka gaartay, laakiinse maxkamadaha mar walba la soo taagay raggan waxay ka sinaayeen in xukun dil ah lagu fuliyo. warbixin shalay ka soo baxday xafiiska xeer ilaalinta Puntland isla markaana qayb ka mid ah ay heshay idaacadda Simba ayaa waxaa lagu sheegay in 960 kufsi in ka badan ay ka dhaceen Puntland sanadkii aan ka soo gudubnay ee 2019 ilaa 2018. warbixinta ayaa si gaar ah waxaa looga hadlay falkii lagu dilay laguna farxumeeyay marxuumad Caaisha Ilyas. warbaahinta ayaa wax ka weydiisay sababta keentay in ilaa hadda xukun dil ah lagu fulin laayahay raggaasi. gudoomiyaha maxkamadda racfaanka gobolka Nugaal ee Puntland waxa uu sheegay in haba yaraatee uu beeninayo wararka sheegaya in madaxweynaha Puntland uu go'aan ka gaari karo kiiska raggan loo haysto, isagoo sheegay in arrintan ay u taalo maxkamadda sare ee Puntland. dadku waxay u qabaan kiiska madaxweynuhu inuu fuliyo. kiiska madaxweynuhu shuqul ku leh maxkamadda sare ayaa go'aan ka gaarta. kiiska xilliga qofka dilsugaha dilka lagu fulinayo iyo xilliga meesha iyo madasha iyo goobta iyo saacadda. xilliga wixii ka dambeeyay waxaan maxkamadda ka sugaynay sare waxaan ka sugaynay inay go'aan ka qaadato, laakiin duruufo badan oo jira awgood ma suuragelin ilaahay amarkii inay kiiska maxkamaddu ka gaarto. inkastoo aan maqlay gudoomiye xalay inuu ka hadlay oo yiri kiiska waxbaa naga dhiman, maxaan ku yiraahdaa qoraallo dhaxal koob ah ayaa naga dhiman oo ka dhiman maxaan ku yiraahdaa codsiga xafiiska xeer ilaalinta, laakiin dokumentigaas insha Allah waan wareejinay maanta oo taariikhdu tahay 11 bisha maxaan ku yiraahdaa 2019 waxaan ku wareejinay maxkamadda sare. waxayna ahayd sharciyan kiiska meesha uu ku dhamaado inuu sameeyo isagu dokumentiga inuu diyaariyo oo dadka hadday codsadaan halka inuu faylka maxkamadda inuu dokumentiga laga helo ayay ahayd, laakiin ma dhicin. annagu waxaan islahayn dokumentigaasi wuxuu yaalaa maxkamadda sare, annaga waxaan nala ka sugayay kaliya codsi baa nala ka sugayay.
xiriiro kala duwan oo aan la sameynay ehelada marxuumad Caaisha Ilyaas ayaa waxay noo sheegeen in haba yaraatee wax cadaalad ah ay ka waayeen madaxda ugu sarreysa Puntland. idaacadda Simba ayaa dhowr jeer hore waxay la xiriirtay xeer ilaalinta Puntland balse si cad waxay ugu sheegeen markii ay telefoonka iga qabteen in arrintan aysan ka hadli karin maadaama awood ka weyn ay tahay. qabaa'ilka ay ka soo jeedaan ama qabaa'ilada ay ka soo jeedaan 40 eedeysane ayaa waxaa lagu tiriyaa kuwa awood ku leh deegaanada Puntland ana tan keentay in si fudud loogu fulin waayo xukunkan. waxaa jirtay in xukun mid ka horeeyay oo nin dil ka geystay magaalada Gaalkacyo dhawaan xukun lagu riday. su-aasha isweydiinta mudan ayaa waxay tahay maxay raggan kaga duwan yihiin kuwa kale ee xukunada lagu fuliyo. ciidamada milatariga Soomaaliya ayaa saaka dhaqdhaqaaq ciidan waxay ka wadaan deegaano hoos yimaada degmada Baardheere ee gobolka Gado. milatariga Soomaaliya oo garab ka helaya ciidamada Jubbaland ayaa saaka waa berigii waxay howlgallo ka bilaabeen deegaano hoos yimaada degmada Baardheere ee gobolka Gado. Al-Shabaab ayaa waxay badi maamulaan dhowr iyo 10 deegaan oo hoos yimaada degmada Baardheere waana tan keentay in ciidamadu ay saaka howlgal halkaasi ay ka sameeyaan. waxaa jira warar aan helayna oo sheegaya in iskoormaad kooban ay la kulmeen ciidamada milatariga Soomaaliya iyo sidoo kale kuwa Jubbaland balse lama oga khasaaraha ka dhashay. Cornel Aadan Yacquub Nuur oo kamid ah waa saraakiisha ciidamada ayaa idaacadda Simba wuxuu u sheegay in howlgalkan ay ogol leeyihiin sidii Al-Shabaab ay uga riixi lahaayeen deegaanada ay kaga sugan yihiin degmada Baardheere. howlgalkayagu waxa uu yahay mid aan ku bacsanayno kuwa diidan in aan nabad ku soo dabaalno gobolka Gado. waan cayrin doonaa waana ka saari doonaa. waxaan kuu sheegayaa waxay tahay in ay naga go'an tahay inaan dharaar iyo habeen aan u orodno sidii aan shacabka u difaaci lahayn ayaan ka soo xigtay sargaalkaasi ka tirsan ciidamada milatariga Soomaaliya. halka aad warkaasi kala socotaan dhageystayaal waa idaacadda Simba ee Muqdisho. bal markana akhbaraadka dibadda. dowladda dalka Jarmalka ayaa waxa ay martigelin doontaa shir looga hadlayo xaaladda dalka Liibiya. hogaamiyaha dalka Jarmalka haweeneyda lagu magacaabo Angela Merkel ayaa shaaca ka qaaday in shirka nabadda ee dalka Liibiya lagu qaban doono magaalada Berlin ee caasimada dalka Jarmalka. hogaamiyaha dalka Jarmalka Angela Merkel ayaa kulan la qaadatay dhigeeda madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin waxaana kulankooda diiradda lagu saaray xaaladda amni iyo tan siyaasadeed ee dalka Liibiya. war-saxaafadeed si wada jir ah ay u soo saareen hogaamiyaasha wadamada Ruushka iyo Jarmalka ayaa waxa ay ku tiri hogaamiyaha dalka Jarmalka waxaan rajaynaynaa dadaalo wada jir ah oo dowladda Ruushka iyo Turkigu ay horseedi doonto guul laga soo hayo dalka ay qalalaasuhu hareeyeen ee Liibiya. waa dal qani ah balse dadkiisu kama aysan faa'iideysan. xaaladda dalka Liibiya ayaa u muuqata mid ka sii dareysa tan iyo markii dowladda dalka Turkigu ay shaacisay in ciidamada milatariga ay u diri doonto dalka Liibiya. waxaana haatan la filayaa in ay dhaqan gasho xabad joojin ay sameeyaan maleeshiyaadka u hogaamiya Generaal Khalifa Haftar iyo sidoo kale ciidamada taabacsan dowladda dalka Liibiya qaramada midoobay ee aqoonsan tahay ee fadhigeedu yahay Tripoli. guud ahaan dhageystayaal war wixii dal iyo dibad naga soo gaaray oo aad kala socoteen idaacadda Simba waa naga inta. warkayaga ciddu uu seegay isagoo maqal qoraal iyo sawirro wata waxay ka heli karaan page weynahan internetka ku leenahay ee simbanews.com. اهلا وسهلا سهلا ورني وقورما تمد بدم بكوكو اوغاي انا شل يا امي شل ما تمد الحمد لله مرقى حالي راديا دار حي وحنا مقلاه سيمبا بابريجها سيمبا ذا محبني اذا عذبوا سيمبا عليرا مقعد سيمبا اللي واحد ساعد كذا ولا كساوينك ساسا سيمبا ناكوجا راديو سيمبا واذاعه اسلامكي ummadaas u dhaxayso ujeedada guud ee abaartay ku shaqeysana waa astaan nabadeed. راديو سيمبا ambaqaadka hawsha bulshada ay u adeegtaa waa aslax qarameed oo akhbaaraadka adduunka ay aad u soo tabisaayo idhahday tabinaysiyo iibka suuqyada yaala nooc walba ay sharaxdaayo u sheegtaa inta moog
bagaash yaalla baqaarkiiyo maqaasiin afka jooga alaabtii ay ku daaday ii dhehday baahinaysaa irdaha loogu furaayay raadiyo simba ogaada radio simba in maqashii in madadaaliya ogeysiisyo muhiim ay gaarsiisaa ummadoo dhan ee ruuxii idhaw u baahdow ha moogaan radio simba idaacadda simba waxa ay ku taallaa daarta alkhaliij kalena xiriir teleefon lambar 5